السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdiraxmaan Buurde waxaan idin soo gudbinayaa qaybtii saddexaad ee qisadii murugada badnayd lana wada sugayay socdaalkii geerida Soomaaliya ilaa Yurub. Waxa inoo joogtay xalqadii labaad iyadoo tahriibayaashu ka cabayaan isha biyaha durdurka ee Suudaan kadib markay dhaqaaqeen ay la kulmeen gaari cabdi bila ah oo askartii Suudaanta ee xuduudaha ilaalin jirtay ay saaran yihiin. waatan iyadoo uu inoo sii wadayo wiilkii qisada ku dhacday. gaariga ayaa la joojiyay, askartii ayaa isku kaaya hareereysay waxaana nala amray inaan gaariga ka soo daadanno meel halkaana ayaa nala tubay. aniga ayaa laygu yeeray soo bax si aan u turjumo la hadal ada afkooda yaqaane. maxay naga rabaan? askartii wax badan ma sii sugina waxay yiraahdeen qof walba waxaanu ka rabnaa $100. haddii kale waan idin xirxiraynaa, Khartoumna dib ayaan idinku celinaynaa haddii kalena afkarta. talaan ugu caddaatay dadka qaarkood lacagba ma haystaan, maxaan yeelnaa? waxaan soo gaaray annagoo bannaanka nala tubay oo askartii Suugaanta meesha nagu qabatay. aniga la ii yeero la yiri ka turjum. dadku waa 76 qof oo Soomaaliya oo hal gaari lagu goray. askartii ayaan waxaan ku yiri niman yahow annaga Soomaali masaakiin oo tahriibaysa oo adduunka Ilaahay calafka doon ah ayaanu nahay. dhibidiin ma wadno, waxna ma haysano. askarta ninkii madaxda u ahaa ayaa yiri waan ognahay inaad tahriibtihiin, dhibna idin lama rabno, laakiin qofkiiba $100 ha bixiyo waan idin sii deynaynaa haddii kale dib ayaan Khartoum idinku celinaynaa. waxaan ku yiri ikhwaanay dadku muddo ayay hadda safar ku soo jireen, duurkana rafanayeen, sahaydiina waa ka dhamaatay, waxba ma haystaan, waa dad masaakiin ah. wuxuu yiri idinka idinta la arintaasi qofkiiba $100 ha bixiyo, dumarka ayaanu idinka dhaafaynaa sida nimankii u gorgortamaynay. waxaan isla garanay $20 qofkii inay ka qaataan, dumarkana iska dhaafaan. lacagtii ayaan u ururinay, markaas ayay yiraahdeen fuula gaariga. allahayo maxaa noo qoran? qofna waxa looxa ugu qoran ma oga. markaan isniraahno dhibkii wuu dhamaaday oo waa la soconayaaba, waxa noo bilowday bog cusub oo kii hore ka daran. dad badan oo tahriibka soo maraya ma oga waxa la maraya si maalin ah. waxa loogu dulmaraa inuu dhib jiro oo kaliya, sida xitaa annagu marna ma suuraysan, laakiin maalinta ka sii dambaysa waa ay ka sii adag tahay. maalintii oo dhan waxaan soconay, waxaan ka badnay 80 kilomitir. kadibna gabalku markuu noo dumay ayaa la yiri halkan ayaa la bariyay caawa oo baabuurtii Liibiyaanka ayaa halkan inoogu imaanaysa. 3 gaari ayaa la keenayaa oo laydinku kala qaybinayaa, laakiin subaxii waxaa la helay hal gaari oo cabdi bila ah Soomaalidu u taqaano. annagu waxaanu nahay 76. waxaa la yiri labadii gaari oo kale goordhow ay imanayaan ilaa galabta. gaarigan hadda qaybaha sii raacdo. koox 27 qof ah oo wada socotay oo isku jecsanayd ayaa gaarigaas raacday. mar dambe ayaan ogaanaynaa inay naga nasiib wanaagsanayeen, qofna waxa u qoran ma dhaafi karo. gawaaridii kale galabta ama berri ayay imaanaysaa. waxay noqotay 16 maalmood inaanu meeshaas fadhino. maalinba maalin nolo ku dhiibo. meesha aanu joogno geed kuma yaalo, waa saxaro cidlo ah, dhulka dheer cirka dheer. hadda dhinac kasta u socoto qori qallalan inaad hesho lagama yaabo. maalin walba qofka waxa la siiyaa 4 xabo oo timir busura iyo hal kabasho oo biyo ah. 24 saac qof walba intaas ayuu leeyahay. maalinta oo dhanna wax kale indhasaari maysid. dadku maalmo kadib tabardarro iyo xanuun ayay la daateen. qaar ayaa suuxsan, qaar ayaa taahaya, qaar kalena waaba ay xanuunsan yihiin, gaar ahaan dadka sigaarka cabbi jira oo dhibaato weyn qabsatay. 16 maalmood hal habeen ayay bariis qallalan dadka u kariyeen. hal maalin qoryo raadsada ayay dhehenshaha aan idin karine. saxaaraha ayaa intaydii socon kartay ku yaacnay, hal qorina waan soo weynay dab lagu shito. bini aadam bahal isu bedelay. waxa yaab leh bini aadamku marka diinta iyo dareenku ka dhamaado inuu isu bedelayo bahal aan haba yaraatay wax naxdin iyo naxariis midna lahayn. nimanka dareewalada ah iyo shaqaalahoodu iyo ninka safarta tahriibka hogaaminaya ee Suudaanta waxay wateen neef weyn oo la ah hilibkiisa oo la qalajiyay oo baabuurka korkiisa u suran. hadba xooga ayay goostaan oo karsadaan, maraqiisana cabaan, hilibkiisana cunaan, halka basho qofna uma taagaan. dadka oo meesha daadsan indhaha ku soo eegaya oo dhimanaya ayay halkaas kore dabkooda ku shidanayaan, waxna ku karsanayaan meel aad u cararto ma taqaan. gabdhihii ayaa yiri waan soconaynaa. markii cabaar socdeen oo hadday 100 kilomitir ku socdaanba ana geed arkayn ayay soo noqdeen. habeenka dadka intiisa badan gaariga hoostiisa ayay jiiftaan, maalintiina meesha ayaa la wada harsadaa. dadka intiisa badan ma dhaqaaqi karaan oo nafti ayaaba kalxamaha u taagan, qof ayaa wali dhaqdhaqaaq ku sii yaryahay. subaxii 17aad ee aanu goobtaas fadhinay ayaa la yiri baabuurtii Liibiya ka imaanaysay waa diyaar, soo fuula meel dhow ayaan ugu tagaynaa, waa soo luudnay. gawaarida dadka qaar maba fuuli karaan, waa in la qaado, qaarna naf weyn maba hayaan. waxaanu nimi 2 buurad oo yar dhexdooda, halkaas oo aan ugu nimi 2 gaari oo kuwa Soomaalidu u taqaan cabdi bila ah. waa nimankii Liibiyaanka ahaa ee nala ku wareejin lahaa.
nimanka liibiyiinta ah ee labada gaari wada waa 5 nin waa niman dalka Chad iyo Liibiya u dhaxeeya oo madmadow waa niman wajigooda laga boqo oo naxariis aanay ka muuqan guulguulka iyo canaanta iyo hadalka ayaa durba ka garanaysa waxa ka dambeeya labada gaari Cabdi Bile xagga Liibiya ay u jeedaan gaarigii looriga ahaa ee Suudaantu wadatayna wuxuu u jeedaa xagga Suudaan waxa u dhaxaysa masaafo aan ku qadari karno 25 ilaa 30 mitir gaarigii Suudaanta hadii aan ka soo deganay ee dhulkana tubay waxaana la hadlay ninkii Suudaanta u weynaa wuxuu yiri nimanka Liibiyaanka lacag cusub ay rabaan waayo kharash cusub ayaa la soo galay waana arrin ay isla ogyihiin kooxahan wax tahriibiya mid kasta markuu kan kala gacanta ku galinayo ayuu ka iibsanayaa maxaa yeelay wax damaanaha ma jiraan wax lagaaga baqayana ma leh haddaad meesha ku dhimato iyo hadii lagu hilmaamo cid iska weydiinaysa ma laha xagga ehelkaaga iyo Soomaalidana waxa tahay nin tahriibka ku dhintay hadii ba lagu ogaado oo lagu soo sheego cid aad u qoran tahay cid la xisaabtamaysa nimankan iyo cid ka dambaysa oo ay ka baqayaan midna ma jirto waxa la laba kooxood ayaa leedin qaybinaya qayb kasta gaari ay fuuraysa qolo kasta $1 ay bixinaysa annaga ayaa isqabanay qolo waxay tiri lacagtii waynu soo bixinay ilaa Liibiya maxay tahay lacagta cusub ee aan bixinaynaa qolana waxay tiri meeshan waa saxare cidla ah wax aynu qaban karnaana ma jiraan aan lacagta iska bixino qoladaas ma badaahin koox wada socota oo hal qoys u badan ay ahaayeen lacagtiina kaash ay u bixiyeen anaga kooxdayada qaarkood lacagba ma haystaan anaaba kamid ahaa $20 ayaaba aan lacag markaa haystay lacagaha meel adag oo hoose oo doqon magarata ah ayaa la gashadaa sida surweelka laabkiisa hoose oo loogu tolo ninkii Suudaanta watay Samaani ayaan la gorgortamay waxaan isjijiinaba waxaan la gaaray kooxdayada inuu ka qaato $400 kadib markaan u dhiibay wuxuu ii soo celiyay $50 maadaama aan turjumaan aan u ahaa uu igu yiri adigu jidka ku mar gaariga Eritreanka xaaladdu markii halka marayso nimankiina aanu kala baxnay qoladii Suudaantu ay kuwii kale nagu wareejiyeen laakiin aan wali gawaarida la fuurin Suudaantina ay wali taagan tahay waxa qolada Liibiyaanka u yimi gaari kale oo Cabdi Bile ah oo dad Eritrean waday oo meel dhow intuu ku soo daadiyay kuwan u yimi si ay isula jaan qaadaan dhinacooda ayuu gaarigii soo istaajiyay xagga Liibiya isagoo u jeeda oo matoorku u shidan yahay ayuu ka soo degay albaabkuna waa u furnaa kuwa annaga qaadi lahaana waxay ku foorreen shaag baabuurta mid kamid ah oo ka hadlaysnaa uu soo dilsaagay isagoo leh miyeedaan dhaqsanayn Suudaantiina xaggaas meel ah ayay wali taagan yihiin oo inay dhaqaaqaan ay isu diyaarinayaan annaguna dhexda ayaan tubannahay jabhadda al-cadli wal musaawaat waa tan mur soo tiri iyadoo sidaa la yaalo waqtiguna galab yahay casarkii galay ayaa halka waxa ka soo mudhir gaari Cabdi Bile ah oo ay saaran yihiin koox askar ah oo tobaneey ah oo hubaysan oo jabhadda al-cadli wal musaawaat ee Suudaanta mucaarad ku ah qadayar kadib waxay ka soo daateen gaariga iyagoo meesha isku hareereeyay qaar waxay markiiba qabteen gaariga Suudaanta gacanta ayayna ku dhigeen kuwa kana dhinaca kuwii Liibiyaanka ay soo aadeen ninkii wata gaariga Eritreanka gaarigiisu uu shidnaayay markiiba shirka ay ku booday marshuuna galiyay oo lagu wax ka dayay waxa ka daba booday gaariga dushiisa hareeray laba nin oo kale oo kuwiina wadi lahaa gaari xoogaa cusubna uu ahaayay caguhu wax ka dayay gaariga jabhadda oo dhowr nin saaran tahayna ayaa ka daba tagay xabadana ku riday gaariga jabhadda qoor weyn ayaa saaran sida kuwa Soomaalidu ku dagaalanto ee tiknikada loo yaqaan wax yar kadib qadar 20 daqiiqo ayaa gaariga jabhadda oo gaariga cararay soo qabta soo noqday darawalka Eritreanka waday furihii gaariga ayaa laga qaaday in jabhadda kamid ahaa ayaa loo dhiibay oo lagu yiri gaarigan kaxee oo saldhiga geey sidaas ayaa gaariga cararka damca lagu qaniimaystay intaas ay inoogu joogaysaa xalqada 3aad fadlan si aad xalqadaha dambe ula socotid subscribe kanaalka saar gambaleelkana furo aad bay u mahadsantihiin